waxaa munaasabad lagu maamuusiyay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee loo doortay waddanka Holland Maxamed Yuusuf Hurre ayaa ka qabsantay magaalada Den Haag ee waddankaasi halkaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana si wada jir ah u soo dhaweeyeen mas'uuliyiintaasi halka loo magacaabay gudoomiye Maxamed Yuusuf Hurre waxaanu maanta halka ku soo dhaweynaynaa guddideeda fulintu xisbiga wadani anagoo ku hadlaya afka xisbiga ahna gudoomiyihii koowaad gudoomiye ku-xigeenkii koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Yuusuf Hurre oo loo magacaabay muddo ka hor gudoomiye ku-xigeenka labaad loo magacaabay laanta Holland ayaan halka ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay Maxamed Yuusuf Hurre ku soo dhawow xisbigaagii horena wuxuu uga mid ahaan jiray guddidii xisbigii kulmiye oo mar hore ka digarogtay maantana waxa loo magacaabay hadda muddo ka hor loo magacaabay inuu noqdo guddida xisbiga laanta Holland oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad Yaasiin Cabdilaahi Cabdi oo ah ogeeyay xisbiga laanta Holland maanta halkan waxaan u joognaa soo dhaweynta walaalkeen Maxamed Yuusuf gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani loo magacaabay gacmo furan baan ku soo dhaweynaa iyo qalbi furan iyo shaqo wanaagsan soo dhawaan ku leenahay si wacan u shaqeyn doonaa insha Allah mustaqbalka aadna waa idin salaamaya soo dhawaan aad iyo aad baan idin salaamayaa guddiga sharafta leh ee halkan qolaan isugu timi Maxamed Yuusufna waxaan leeyahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow xisbiga waxa ku lama kala lahaa waa laga soo horeeyay gobol qaari ku soo fadhiiso taayir insha Allah qaari aad noqon doontaa Maxamed si wacan qaari oo shaqeeya noqon doontaa insha Allah anigoo garabkii haweenka ah yahay soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow xisbiga wadani waxa ku qofkii soo galaa ama se dadkii hal maalin jeclaysto inuu galo aad iyo aad ugu reeyaa waa xisbi ballaaran waa xisbi aan cid kala lahayn waa xisbi qof walba u furan dee soo dhawow baan ku leeyahay Maxamed maanta oo ay bishu tahay 18 bishii saddexaad sanadkii 2022 waxaanu isugu timi guddidii fulinta laanta Holland xisbiga wadani soo dhaweyntii gudoomiyaha labaad Maxamed Yuusuf Hurre oo aan leeyahay Maxamed Yuusuf soo dhawow xilka cusub geesta kale waxaa isna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiye Maxamed Yuusuf Hurre isla markaana ugu baaqay bulshada inay la shaqeeyaan أنا أبي أقول لهم علم جدًا شرفت بدن لها كسبتني تلك أي كفتين إن المقلوب بدون حاجين كلابد حسب وطني لان تسمى البلان ونقول لهم علم لها إن شاء الله أنتوا حل عرس عن إلهي كبرياء إن يجود عيسان كمان تيمبا إن شاء الله تعالى سيكون إلهي وافجيه وخير كتيره والسلام على من تبعت وما سنتي ومحمود بادر بولشة TV هرقيسة